waxaa dhacays in dumarkaana u badan guriga ka soo baxday waxba uma qorno ileen dugsiga tagtay gabar kale waxay leedahay kaalay waxa ay raacdaa isbitaalka waa raacaysa maxaa yeelay waxba uma qorno taamkada uma qorsheysno saacadda waxay qaban lahayd ma laha tukala waxay leedahay ayaa kaalay arooskan aan aadnay waa daba socotaa maxaa yeelay taamkada jadwal ma laha maalinku wuxuu uga dhamaaday marka maray isbitaal mid u raacday mid maray aroos ka qayb gashay ama maray jidka taagneedo gabadh la sheekeysanaysay ama mar maxaan ku raacdaa meelaha ay wareegaysay ama maray iska jiiftay marka maalintii oo dhan saas ku dhamaanaya marka noloshaas sax ma ah akhawaati noloshaas waa nolosha xayawaanka waa noloshaada hadaf u yeelo tijaabi ugu fiiri maanta buug soo qaado ahdaaf dejiso waxaad dejisataa maalan salaada subax markaan tukado hal saac waa inaan juz quraan akhriyaa wardi quraan qofku inuu wardi leeyahay juz xiisa inta akhrin karto maalinka saacad kamida waa inaan xifdiyaa haaf safxad nisfu safxa safxad barkeed ama hal safxo ama intaas aayad wax waa inaad qorataa adiga hadba fahamkaaga saacadaas waa inaan nastaa saacadaas waa inaan salaad tukadaa saacadaas maxaan ku raahdaa waa inaan gurigii iyo hooshiisii ka shaqeeyaa saacadaas waa inaan soo adeegtaa inay ku qoran tahay saacadaas maxaan ku raahdaa waa inaan sidaa yeelaa مثلا لقدا برتا إنجليزكا برتا ساعداس وإن ساعد كمية مالين وليبا طبعا أنا حفظيا أم عريقا برتا طبعا أنا حفظيا مركي عاد هدف لهذا هاي وحاج وكو قرية هاي لقاما مشغولين كانوا هدي قبل كنت ماشي الراب حال هذا هاي سوري أنا برنامج عن ليه هاي درسي عن ليه هاي 10 عن ليه هاي وحسن ليه كم راعي عن ليه هاي لكن الهدف لهاي ما أنت ضو حواسيدي قول أما الله دبش أي وضوء كلا عياد نقوليسها مرك هدف وإن أدجستا هدف كأدجستا وإن لقياس كرو هدف كأدجستا وإن لقياس كرو هديعة وأنا قرآن كحفظية مية وأنا ترى هذا مالك وأنا حفظية هل صفحة ووحل قياس كرو هل صفحة وحكك وبين شرعي طبعا صدر شرعي طبعا صدر مالك لقاربها مركا أهداف وأنا الذي مركا قف كان هدف لهاين هدف وميل تكسره هدف سياد أقارتنا وإن يكون قريه ما أنت واحد ربطا إنها تكتو صوت سيارة مثلا سوسي لما لغا يسماها هدف كان مركا ما بس الراعيسة ما تكسيها الراعيسة وحو أن يكون قرشي سيهين وأقلب كل حال قلب كتلوان مركا وأقلب مهمة سين رشا قول أدوغارتو تطوير المهارات باستمرار waxa u baahan tahay xirfadaada si joogto ah inaad u horumariso waxaan oo dhan shariicada loo sheegtay ma aha wax gaar laga keeno ma aha waxa u baahan tahay si nolosha aad guul uga gaarto xirfadaada waa inaad horumarisaa tusaale macallin dugsiga tahay quraanka kaliya taqaana inaad ku ekaato ma aha وانا حديثي كترتا وانا فقهي كترتا حديك ilmaha ku soo gaarayso maaha ganacsataa tahay dukaana ku furan wax waliba oo ganacsiga khusay waa inaad barataa ha qaabkeed kala soo jiidan kara qaabkeed marketing u samaysan karta qaabkeed dukaanka u qurxin karta ya مثلا ardaya tahay wax baad barataa مثلا luqada carabiga barataa luqada aad baranaysay waa inaad maalin kasta akhriso وأنا بوقت أخرسها شيكوين كأخرسها مجلات كأخرسها مجازين كأخرسها معناها واسي جوبت أن رش هذا وإنا أهر مرسا تسارع ابن سيرين المركب حدين رشا سي جوبت حرفت هذا أذن أهر مرين حتى تربية أبدك أنا وحنا هيسنا تربية المها وحس كعالي بيتهمي تربية إنه هو الله برتا كورسوين لقو أيا كورسوين فربضان أيا لقب بحيه والله عقل قبتها سيدان قبت كان تربية نيسا مركا الدشان إلى إكن قاقاريا ساء تربية سا مركا تربية إلمها حد وحبا دباتات وقبضان سومالي مالكس وأي جوكتو
kuwa Mareykan joogo kuwa Yurub kuwa Afrika kuwa Carabaha joogo waxa ugu badan waa tarbiyada ilmaha waxay iska noqotay aabaha iyo hooyadu waxay ka fikiraan canuga calooshiisa kaliya maxaa yeelay wadankan ka nimid Soomaaliya ka nimid bi'ada muslim ahaayeen dugsi macallin muslim ay joogay iskuulka macallin muslim wax badan noogama baahnin ardayga wuxuu nooga baahnaa kaliya in calooshiisa laga fikiro usan gaajo canugaasi aysan qaban qurbaan nimid gaala dhex nimid wali caloosha ka fikirayna bi'ada waa gaalo iskuulka waa gaalo meeshuu adaa waa gaalo ilmihi gacanta ka bixin marka ilmaha marka tarbiyada ilmaha waa wax la barto waa marka haddaadan baran oo aadan dhegaysan meelaha lagu aqrinayo aadan tegin waxa ogaataa ilmaha gacantaada ka baxayaan canuga marka muraahib uu noqdo qaangaar uu noqdo qaab loo dhaqmaa jirto marka 2 jir uu yahay iyo marka 4 jir uu yahay isku mid ma aha isku qaab looma dhaqmo marka ilmaha ma tumaysaa ma dhaafaysaa qaabkee jecesha inay noqdaan ilmahaadu marka aad rabto inay toosaan ilaahay subxaanahu markii aad dadaasho oo wax barato oo tarbiyadooda qaabka loo tarbiyanaha aad barato waxa hubaala in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu garab siinayo marka waa in si joogto ah xirfadaada aad u horumarisaa tusaale aan siinaya waan ku soo khatimiyaa waqti ay dhacay ma sii dhameystiri karo shirkadda Nokia hadda waxaan isleeyahay kulli waxa la wataa Samsung ama iPhone Somaha 10 sano ka hor dadku maxay isticmaali jireen taleefanka la isticmaali muxuu ahaa Nokia Somaha Soomaaliya kaliya suuq oo dhan Nokia ku arki jirnay hadda Nokia ay ka baxday ya guarda suuqa sababka ay u baabay ma taqaaniin macna tusaale aan soo qaadanayo waxaan u soo qaatay mar waliba xirfadaada nolosha waa inaad horumarisaa haddaadan horumarin fashal ku dhacay adduunyo aakhiraba shirkadan waa shirkad Finlandeysa waxa laga leeyahay Finland waxa la aasaasay 1865 shirkadaha ugu waaweyn dunida ee soo saara tiknoolajiyada ahayd 800yadii adduunka dhan waa qabsatay maantana waa qarsoontay oo cid taqaan ma laha sababku ah waxay la jaan qaadi waayeen isbeddelka nolosha ku yimid iyo horumarka la jaan qaadi waayeen waxa ogaataa isbeddelka nolosha ku imaanayo haddana la jaan qaadin shalay 10 sano ka hor hooyada joogtay iyo hooyada maanta joogto isku mid ma aha maanta canugi telefoon uu haystaa smartphone iPad uu haystaa Facebook uu isticmaalaya WhatsApp ku taagan maxaan ku raadin Twitter uu haystaa Snapchat uu haystaa balaayo dhan uu haystaa marka oo loo isticmaali kara khayr iyo shar waxa badan inta sharta ay u isticmaalaan 10 sano ka hor ma jirin marka waxaas ma jirin tarbiyada canugu way fududeed laakiin maanta waxaaba badan noloshii ku soo kordhay haddaan waalid uusan la socon uusan la jaan qaadin ee xirfadiisa tarbiyada ilmaha uusan kor u qaadin waxa ogaataa nolosha dhan ku fashilmaya marka haddii aad doonayso in nolosha aad guul ka gaarto waxaad ku qasban tahay tadwiir almaharaat bistimraar inaad dhistaa xirfadaada si joogto ah marka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن قوي جاء قوي في إيمانه إيمانك قوي ياهي مؤمن جرك قوي ياهي تلك وأنا كفكرتها وجزء إسلامك كملا ولذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم جمالك يخرج لاعتباره سينجري أو مكو كبرك كهالله أنك صحابة كملا ويري رسولك إله يوم أنا وحن جعلها كما ونكسن در ونكسن ما كبر با وحكور النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إله وقلب سيهاي وروح الواجع ليهاي مركا مؤمنك قوي وحالك وضع ومؤمنك كرتيد بدن نلوش ماريسا نلوش هرمريا لجان قادة نلوش إزبدلك نلوش حد كل دلالة inuu dhiso noloshiisa hadii ay ku saabtay gurigiisa hadii ay tahay mid ganacsigiisa hadii ay tahay mid isaga iyo xiriirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhaxeeyo shalay quraanka hadii aad is akhrin kartid maanta 2 juz ka dhig hadii aad salaad weel tukan jirin maanta tuko wixii la mida Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr farbaad ayuu ka siinaya intaas ayaan ku soo koobaya waqti ayaa iga dhamaaday wallahu subhanahu wa ta'ala alam billahi tawfiq
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أنا والله